Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa anigoo Ilyas Cabdiqaadir Abuukar Ilyas Kulmiye kusoo dhawaada channelkeena Some Life and Peace Media. Waxaan filayaa muddo bil ah inaan ka maqnaa hawada, waayo waxaa jiray culeysyo xagga waqtiga soo wajahay, balse waxaan huri waayay dadweynahayga gaarka ah ee alaaba ila socda barteeda YouTube-ka inaan soo gudbiyo qodobkii markaas taagan, kuwa iga quseeya iyo kuwa nafteeda intaba quseeya. Balse maanta waxaan soo qaadan doonaa qodob aad xasaasi u ah. Runtii waa dhibaato jirta mar walba arrinkaasina ay haysata dumarka Soomaaliyeed, balse waxaan dumarka Soomaaliyeed leeyahay mar walba isticmaal haddii aad klibkan fiirsato oo si degan aad u fiirsato adigoo u adeegsanaya xaajigaaga. Tii waxaan soo qaadan doonaa qiso calool dibacsanaan leh oo ay dhex martay inan iyo hooyadeed. Qisadaasna waxaan ciwaan ugu dhignay sunta ragga disha. Gabadh aad u qurux badan oo xaas ahayd ayaa waxa ay jeclaatay in ay disho ninkeeda, oo ay markaasi ay ka weyday sidii ay rabtay. Xilli subax ah ayaa iyadoo ordaysa ayay u timid hooyadeed, waxayna ku tiri, hooyo, ninkayga waan ka daalay, wanaaga waan ka waayay, wax jacayl ah kuma haysto, inuu ifurayaan ogolahay. Waxaan rabaa in aan dilo, balse waan cabsanayaa oo waxaan ka baqayaa sharciga. Ima igu caawin kartaa qaab aan ku dilo oo dembi lee qabsanayn? Hooyadeed ayaa ku tiri, isla markaana ugu jawaabtay, haa hooyo, waan kaa caawin karaa, balse shaqo yar ayay ku xiran tahay inaad arrinkaasi samayso. Gabadhii ayaa waxay ku jawaabtay, haa hooyo, diyaar ayaan u ahay inaan hawshaasi qabto si aan ninkaasi ugu takhaluso. Hooyadeed ayaa waxay ku tiri, qodobada sameey, ama waxaad samaysaa qodobadan soo socda. 1. waxaad dareensiisaa mar waliba oo uu kula joogo nabad iyo xasilooni, si marka uu dhinto aan adiga lagaga shakinayn. 2. isqurxi mar waliba oo uu kula joogo si uu kuu fiiriyo oo aad u noqoto gabadh yar oo soo jiidasho leh. 3. si fiican u daryeel inta uu kula joogo, una noqo qof fiican si mar waliba uu kugu bogo. 4. mar waliba dulqaad iyo jacayl u muuji, maseerkana ka yaray, hadalkiisana dhegta u raaraci oo si fiican u dhageyso, aad iyo aadna u tixgeli, una adee. 5. lacagtaada ku qarash garay, hana ku xanaaqin marka uu biilka kuu keeno, inta ay doontaba ha ahaatee. 6. codkaaga kor ha u qaadin, hana ka hor imaanin, balse dhirgeli, jacayl iyo ixtiraamna si weligaa lagagama shakin doono marka uu dhinto. Intaas oo dhan ma qaban kartaa? Hooyadii ayaa saas tiri. haa hooyo, ayay ku tiri gabadhii. haye qaad dawadan oo maalin waliba cuntada ugu dar, si tartiib ah ayuu dhiman doonaaye. 30 maalin kadib ayaa gabadhii kusoo noqotay hooyadeed, waxayna ku tiri, hooyo, ma rabo inaan dilo ninkayga, hadda wuu isbedelay, anna waan jeclaaday, waayo waxa uu noqday nin dhammaystiran, hadda waa nin aad u wanaagsan, weligayna wanaagaasi kama aanan filayn. maxaan sameeyaa si aan suntii jirkiisa uga soojiyo? hooyo, fadlan i caawi. gabadhii waxay gaartay ilaa ay ka qoomamayso, wayna ilmaysay, waxayna ku hadashay cod murugo leh oo aad u xanuun badan. hooyadii waxay ugu jawaabtay, hooyo, ha murugoon, waxaan ku siiyey sun ma ahan ee waxay ahayd daawo iska caadi ah, ninkaagana ma dilayso. runtii adiga ayaa sunta ah, taasi oo dilaysa ninkeeda, mana ahan inaad disho ee waa in aad dhaqankiisa dishaa. marka aad bilowday in aad jacayl iyo ixtiraam u muujiso ee aad sharaftay, markaas ayuu go'aansaday inuu isbedelo oo uu nin fiican noqdo, isla markaana aad ku tixgeliyo. haddaba dhegayste, fikirkaaga ka dhiibo, maxaa meesha kaaga muuqda? halka hoose ee commentiga fariimahaagii noogu soo jawaab. mahadsanid.